السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا كل يديني عن كقوة هاي لغتها يدكتور حكم إذا اللغة الإنجليزية ده لغة عربية هي اللغة الصومالية. أنا وحنا هاي معلنك اللغة العربية معلم محمد شيخ حسين علي وكم قاعدير معلم باص. تعلم العربية بطريقة مبتكرة. عربي دبرتها طريقة عصرية كبرتها سلس وسهلة هذا فطط واد ما تكون معتصنتهاي أرضيه إن هذا نلصو حديدي وهذا ولي بدنين سيد لغة العربية مستواش أنو دقنا هدانو شرح كوان كاغا بحيو مستوى الأول وحانو هتكو قادنا الصاع القراءة والكتابة مدير لبا بلوضة أياد القراءة والكتابة كبحثة وحقر وحاقري وحال قرية وحال آخرية وعربي مستواها لبعض أرضيقو مركا القراءة والكتابة كصوبحو وحقوب باهي إنو اللغة دي سيمتين كسيد قوسيات كيو taasna waxa keenaya mustawahan thaniga ah oo ay kuugu jiraan sheekooyin gaaban kalimaad fi jumal kelmado jumlada ku jira waxyaabo muhiim u ah ardayga mustawahan ka soo baxay qaybta saddexaad waa tahaddath bilugha al-arabiyya ka ahliha luqadda carabiga ugu hadal sida dadka u dhashay waa muhaadathaat kala duwan iyo waliba qawaa'idki oo qawaa'id an-nahwa iyo qawaa'id al-imla ayaa kulli faaqan qawaa'idki nahwaha oo nahwihi oo aad adkaynasid iyo qawaa'id al-imla oo ah qoraalki xaqiisi oo aad iska dhisay inta waxa ku dheer casharo dheeraad ah oo si free aad ku helasid oo ah khutut al-arabiyya khadki carabiga oo aad fartaada iska wanaajinaysid si ay u qurux badnaato waxa aad qoraysaa xagga naxwa ahaana aad u saxnaatid xagga qawaacid imla ahaana aad u saxnaatid muhadathadina wad qaadanaysaa qisaski xiwaaraadki tacabir mutadaawila waxa la majarra markaad gudaha gashid ayaad insha Allah taala arki doontaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.